بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا ذلك الإله قال سلام رميني سلام محد علينا سلام تلصى رمينا سلام آمني سلام ويدي سمينا نرشد الدنيا آخره إنه واحد سلام وحا ويدي سمينا إنه قلوب تيالا إنه واحد إنه ضدك يالا إنه واحد إنه ضلك يالا إنه واحد diinta iyadu waa hagaagsan tahay inuu si hagaagsan inoo fahamsan intaasi dabadeed waxaan u mahad celinayaa fadhigan khayriga iimaaniga ruuxaaniga ragga soo abaabulay dhalinyarada soo abaabulay khayrkii oo iskaba yaraaday waqtigoo gurmay darteed dadka khayrka dabada haysta waliba xilligan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay dad qurabaa meel walba qariibku waayo waqtiga laga fogaado wanaagga oo meel walba ay xumaantii iyo khaladkii iyo farxumadii ku baahdo ninka khayrkaa iska daba socdo inkastoo ay iskaba adag tahay si maaragtay ninka khayrkaa iska daba socda ammaan gaara ayay diintu siisay axaadiistana waanu ku aragay mawduuca yaga maanta ee cadaaladda falsafadda cadaaladda ijtimaaciga waa mawduuca guud ee muctamarku leeyahay mawduucan gaarka waxaanu isku dayeynaa inaanu ku fahanno falsafa waa xubu lxikma xikmadda oo la jeclaa aqoon kasta waxay salka ku haysaa dabagal lagu sameeyey waxaas ay aqoontu tilmaamayso nalkaa inoo ifaya nin baa wuxuu daba socday kun tijaabo 999 tijaabo buu ku fashay waa nal ninka aadamiga u alifay aqoon oo dhan ilaah bay ka timaadaa qulubta dadkana isagaa ku ilhaamiya bilaashna laguma qaateen ninkii dadaala baa la siiya waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana subusha maxay yihiin subushu waa sunanu lkowniya sunanta ilaahiga kownkan xeerar iyo sunan buu ku taagan yahay sunantaas waxaa la yidhaahdaa universal laws xeerar caalamiya gabadha inay 9 bilood ku dhasho waa xeer caalamiya qoraxdu inay bari ka soo baxdo waa xeer caalamiya biyuhu inuu musmaarkuna dego markabka intaa la eg tahayda uu ku dul sabeeyo waa xeer caalamiya elektroonada isu qabsanaya markay atomka moleculka abuurayaan inay 8 electron ugu sarreyso waa xeer xiran oo caalami tan iyo maantii dunida la uumay buu ilaahay xeerarka ku sameeyey walan tajida lisunnati illaahi tabdiila mujtamaca hadduu rabo inuu badbaado xeer caalamiya oo looga baahan yahay inuu maro hadduu rabo inuu fashilmana xeer caalamiya u yaal oo hadduu maro shaydaan baa ku soo dhaweynaya ereyga cadaaladda tan iyo bani aadamka maantii la umay waa la hadlay baahideedana maalinba maalinta ka dambaysa waa soo xoogoobaysa sababtoo maalinba maalinta ka dambaysa dulmi iyo fasaad baa kordhay cadaalad waxaa cagsu dulmi meel dulmi ka jira cadaalad ma jiro meel cadaalad ka jirana dulmi ma jiro labadii wiilo walaalaha ay nebi aadan u dhalay markay isdilayeen mid baa mid u yimid waa ku dilayaan dulmi buu wadaa nin xaqiis buu rabaa inuu xoog ku qaato kii kale muxuu yidhi lain basata ilaya yadaka ma ana bibaasitin ilayka yadak ma ana baasitin ilayka yadak haddaad dilaysid
ما أنا بباسط يدي إليك هدي عليك الدلميز وبوزيشن ظالمة أستاكتي أنا بوزيشن عادلة من كاستاكتي ثانيا ما انتاس عدالة هذا الكيد ولا هي أوبولتي ما أنت أملين يومكي لغات بني آدم كمرة وحضارة بني آدم كي نلوه الرئي أي كل يوم وآدم يقاري فرق وحالة قاري نقول لي لقد تعالى أدونك وحوق ووينا فرق بطل وطاعتين يا وحا عنك كو آلايا هبر بيعني لبعض كان توربين كان يدهان وإنه آدمي وكوسموس وكفيرنا وتوربين طبعا سنة بالبسي طبعا كل وشقالان وعي كذبات توربين فرق لطاوانا يو وكوكا بني آدم كوكو مريا إن نانوتيك ديورات داركتي راجع انت لو سميه لدحدي si loo helo xidid kasta fiilo kasta oo khalal ku jira mustaqbalka istaalinayaan in dayuurad dacdaba ay jirin oo dambe ilaan meel kastoo khalal ku jira hadii looga sunan ilaahay bay maraya awalam yaraw ila at-tayr fawqahum saafaatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman hatta kalimat ar-rahman ilaahna xariis sunantaas annaga laynoogu naxariista إلهي قعمكم هاي السنن بودجين سننتي بيتعس أيرودينامي بني آدم كوح مريا إنه كفكره جركي سين وهر الإسبير باس ما دام أنه لنا مكبر منا هيكون سكوت دفن كروموسومات يستبر يكلمادين أببرنا يكلمادين هويو ونقاس ما دام تنتني يونقا كتب والله فهم يونقا كيم وإندهن يونقا كيم ومن دعيك يعرش يبالك يونقا كيم لحد إذا يونقا إن سوير باس لا قدرت وأنا للرجينا يا مستقبل تقفكي دك حنونتا يونقا لوغو تلالو لأن دكت يونقا نعوضا يونقا نوجه بني آدم كوح مستقبل كالرجين يا إنه لندن مركو شغادة كسو بها ودبي كسو عشية هبين كينا كسو بي وأهل الصعدة لنا مع ذلك البحث ماذا انت اللي يقول لك جاري بسنة عدالة ولا هيري لها تونس ويلكي سكوكو بي محاها مقعيس وعزيز دولة وإنتاصو سنة جدا المؤسسات كودي ودنتهاي بهالمر هشكوتي سببت واحد عدالة مصر ويلكي خالد سعيد ميوها مقعيس كلنا خالد الله دولة دي وحوق البنين كبارقة بحر ودمضى عرب ودمضى أفريقيا حضارات كفانت البحر ما كفانت المؤسسات كذا جامعة هذا الدون كله قيمة ويلكا ديلكيسي وحسن دلب كلهم بان تلقوا دلي ليري دروغو أبي دروغو يسكنوا ذلك overdose بوجود هذا هو اسبتال في لتني abduction في المسمى داوعية هو انتهي وانا لقرا وفي تجاري دولة دركتي هالمر بيهشت صوته ومحيو عدالة مركز لو فهمه بني آدم كتطور هي هلقا وايها صعدة بني آدم كياركتدي سنوايه إلى الصعدة قف هدو يهدو المجتمع يا زقروبا آدمي هدانا آدمي با هدانا كل يسالات بغل يكونتم كي درشاد النبي عيسى كهر كل يسالات بغل يلوية طلواتم كي لا يكونتم كي
dhulka u dhexeeya labada webi ee ciraaq waxaa ka talin jiray boqor la yidhaahdo ximuraani. ninkaasi wuxuu ahaa wax qoraal laga hayo oo cadaalad ka sheekeeya oo xeerar dejiya qofkii qof ku xadgudba lagu qaado wax qoraalkooda la hayo. ninkaasaa u horreeyey. qowmiyad la dhaho kandaaniyiin hadda waa dhaliya ku nool ciraaq buu ka dhashay. wuxuu ahaa nin aqoontiisa ciidan iyo aqoontiisa idaaro, ciidan keliya waxba tari maayo, aqoontiisa ciidan iyo aqoontiisa maamul ay sarrayso. wuxuu ku guulaystay qabaa'ilkii la degaanka ah inuu mideeyo, kadibna qowmiyaadkii la deriska ah uu ku soo daro maamulkiisa. nin caadila uu ahaa. qoraalkii uu sameeyey, xeerarkii uu ka tegey ilaa hadda iyagoo qoran bay yaalleen. museumka loo faralo ee faranse ku yaal iyo ku xafidsan yihiin. 282 artikal oo kaga hadlayo qawaaniinta cadaaladda baa ku qoran. boqortooyadaas halkaa ka jiday waxay baaba'day 1594 niman xaythiyuun la dhaho ka yimid Asia Wusta, Central Asia yaa burburiyey. caasimadeedii Hittites qabsaday, wixii hanti ay lahaayeenna bililiqaystay. halkaasay indhaha isku qabsatay boqortooyadaas. waxaa xigay faraacinadii. shaksiyadda lejendaha ee qur-aanku ka sheekeeyey dulqarnayn, inkastoo culimmadii horena ay wax ku sheegeen, baaxifiinta hadda jirana ay qolo walba wax ku sheegeen, qolo walbana dalaa'ilkeedii la timid. misana aragtiyaalkaas waxaa ka mid a aragti dhahaysa faraacinadii nin ka mid ah buu ahaa. ninkaasoo caadil ahaa, caqiidadiisana ay wanaagsanayd, daaci diinina ah. aragtida iyada ah waxaa diiday oo ay culummo masaariya soo bandhigtay, culummo iyagana hindiya, nin la yidhaahdo abulkalaam azaad oo baxsi xoog la sameeyey oo haddii alla kuu ran yahay raadadkii lagu sheegay dulqarnayn inuu maray bari iyo galbeedba tegey. wuxuu ku tilmaamay shaksiyad ustuuriya oo bershiya sanamkeedii ilaa hadda uu ka dhisan yahay. the great kiros bay dhahaan. nin boqora oo dhagax ah oo 2 gees leh buu daliil uga dhigay. wuxuu kaloo daliil uga dhigay Griigii, kutubtoodii buu ku laabtay. way xuseen the great kiros inuu nin caadila ahaa, nin khuraafiga Griiga ay aaminsanaayeenna aanan aaminsanayn. wuxuu kaloo helay China inuu tegey great kiros. waxay ku tilmaameen nin caqiida tawxiida watay, caadilna ah. sabkii uu dhisayna wuxuu ku tilmaamay biyo-xireenkii inuu ku yaal buuro Azerbaijan, badda Caspian Sea, buuro ku yaal 2 qarow waaweyn dhexdood, halkaasoo qabaa'ilka manguulka ah ay ka soo duuli jireen. si kastaba ha ahaatee xilligaasna cadaaladday waa la xusay, hadduu boqor fircoon ahaa iyo hadduu ahaa kiros iyo haddayna labaduba ahayn. qur-aanku waa inoo sheegay inuu ahaa nin mu'mina oo caadila. waxaa xigay nebi ciise calayhi salaam hortii 4 qarni. waddamadii Griiga magaalooyinkoodii baa waxaa ka kacay niman hana qaaday, caqli badan, maskax badan, madrasad bay dhiseen. nimankaa waxaa la dhihi jiray fustaaniyiin. laatiinka sufism maaha, laakiin sufiyadii magac Griig ka soo jeedo. nimankaasi waa isu iman jireen, waa ay doodaan, waxay dabagal ku sameeyaan bii'adda iyo cimilada, time and space, waktiga iyo bannaanka, existence, jiritaanka, properties,
waxyaabahan hantida ah waxyaabahay ka doodeen cadaaladda ka mid ah nimankaan niman xigmad badan bay ahaayeen doodaas bay wixii nuxur leh oo ka soo baxa waa ay qori jireen meel bay isugu yimaadaan sida fadhi ku-dirirhkeenaas oo kale laakiin fadhi ku-dirir maahayn si wanaagsan bay caqligooda iyo xigmadooda u adeegsan jireen wixii ay helaan oo xigmada way qori jireen generationna ka yaryar bay bari jireen marka waa isdhexal sii jireen niman filosofiin oo bilaa baa u kacay nimankaasi waxaa ka mid ahaa Protagoras ninka laho Diorgas Prodicus Hippias Lycophron Plato Aristotle nimankaasay ahay cadaaladdu intoodii hore waxay isku raaceen cadaaladda wax jira bay leeyahay waa cadaaladdan maba jirto waa wax wahmiya iska diriima dadku uu hal-abuuray iska jeclaysta kooxdaas hore ninkii u dambeeyey oo firadda qabay waxaa ka mid ahaa Plato Aflaton carabtu dhahdo wuxuu yidhi cadaaladdu waa wahmi wahmigaasna waxaa haysta oo caloosha ku wata ninka markaa tabarta daran ee madluumka tabardari iyo dulmi ay isugu darsano ninka hadduu tabar daran yahay laakiin oo xushmad iyo maaragtay aadanimino lagula dhaqmo dee cadaalad inuu ka hadlo raadaadiyo uma baaha laakiin markuu tabar daran yahay dulmina uu darsoomo ninkaasa cadaaladda oo ku taallo ay ku haystaan ama ase cadaalad ahaan wax jira maaha buuli waxaa yimid ardaygiisii oo ahaa Aristotle waa ardaygii Plato waana macallinkii Great Alexander Aristotle uu ka leexday macallimiintiisii ka horreeyay oo dhan aragtidii ay cadaaladda ka qabeen wuxuu yidhi cadaaladdu waa wax jira laakiin waxay ku xiran tahay akhlaaqiya anshax etic bay ku xiran tahay laba u qeybiyey midna waxaa weeye yidhi waxa muuqda ee la kala dhaco nin baa jeebkaaga lacagta ku jirta xoogkaaga qaatay waxna waxaa weeye waxaanan muuqan waxaa muuqdana waxay u baahan tahay isu celin waxa aan muuqanna waxay u baahan tahay buu yidhi anshax in anshax lagu soco wuxuu soo saaray wax la yidhaahdo the golden center filosofiintu ay dhahaan alwasatiya dahabiya maxay tahay inaan shaygii lagana badin lagana yarayn مثلا laba qof A iyo B la kala dhaho baa waxaa ay kala haystaan ay kala leeyihiin laba wax oo D iyo C ah markaad A aad siisid C-diisii B-na aad siisid D-diisii waa okay cadaalad haddii A aad siisid C naaqusa oo waxaas aad ka yaraysay aad D ugu dadhid waa cadaaladda cadaaladdu marka waxay tahay xogaagaan ziyaada la soo qaado oo inta lagu celiyo laakiin waxay u baahan tahay anshixii ficilkaas lagu sameyn taasaa shardiya nimankaas Griiga ah fikradoodii iyo kutubtii ay ka tageen waxaa ku aasaasmay imbraadoriyadii Roman Empire dowlad qawaaniin leh bay ahayd boqortooyo dictatorana waa ahayd dictatoradii dunida taariikhda soo maray kuwii ugu adkaa bay ka mid yihiin fircoon dabadiisa fircoon nin ka keligii talisanaa taariikhda aadamiga ma soo maray taasaana sababtay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kitaabka qur-aanka ah mathaal uu u noqdo mathal la fiirsado lagu daydo anshiciisii in laga leexo sifooyin wuxuu lahaa ilaa maanta nin kasta oo keligii taliya ee kacay inkastoo qarnigii tegay uu ahaa qarnigii ugu keligii taliyo badna adduunka
weliba aadamiga ugu qahar la gaarsiiyo horay uma soo marin hoshimi Mount Stone ninkii China xisbiga odaga waa Mount Stone 42 milyan oo qof ku dilay 42 milyan 42 milyan oo kaneeco si sahal loo dili waxaa ku xigay baa la dhahaa Stalin 18 milyan oo qof ku dilay waxaa ku xigay baa la dhahaa Hitler 12 milyan oo qof ku dilay waa hal qarni oo sano dhexda saasay u tahay Soomaalidu warroora u kacay laakiin hal hadduu ahaan lahaa intaad naga dhimatay wuxuu ka mid noqon lahaa genocide-ka taariikhaha lagu sheego laakiin hal maahay waxay ahayd horlaro kala duwan marka nin walba kistiisu la tegay taariikhda laguma xusin laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga caadila maalin ayan ciidanna haysan ayan warroor ahayn taytalo lahayn ilaahay hor istaagay cadaaladdu marka Roman Empire inkastoo ay qawaaniin lahayd qawaaniintoodu waxaa 12 article bay lahaayeen oo ay dadka ku xukumaan 12 article nimanka nubalaada Nobel's family iyo nimanka faalowyaasha oo ku agdhow iyo nimanka aristokraadiyiinta ee hoos fadhiya haramka waad garanaysaa saddexda ugu koreeya qawaaniintaasi ma qabtaan dadkay qabanayeen waxayse ahaayeen qawaaniin laga heli karo maalan waxaa ka mid ahaa guurka waxaa ka mid ahaa haddii wax la kala bililiqaysto in maxkamadda isla yimaado hadduu maxkamadda diido in khasab lagu keeno hadduu baxsado qofkaas macnaha ijraa'aad ijtimaaciya bay u fulinayaan 12 laakiin dhan kale markaad ka fiirisid say cadaaladda uga fogaayeen dadka addoommada ah slaveska ah oo la lahaa innaba ha yaraata wax xuquuq ay lahaayeen ma heer waxay gaarsiisnaayeen in inta libaax stadium barnaamijka fagaaraha stadiumka la geeyo libaaxna lagu soo daayo su isaga celiyo loo soo daawasho tago لهذا الحد إذا قفكي آدمي أهات أجاسسنا رومان امباير اختيار يدي الدنبه يدو أدون كوردان عدالة مفاهيم تعلقها يستوى بيدينتي إسلام صوب أحضي قرني الشناد نبي عيسى عليه السلام للشدي سيدة مفاهيمتي عدالة مركز aragtiyaalka kala duwan ku faafsaneed nin dhaha ma jirto nin dhaha qofka miskiinka ah baa rumaysan oo weliba dulman mid haddii aan la kuuron yahay dhaha waa jirtaa laakiin dadkay u qaybsan tahay oo kaa addoonkaana wuxuu u dhashay inuu addoon ahaado ilmihiisana addooma ahaadaan kaa nabiilkaana wuxuu u dhashay inuu nabiil ahaado ilmihiisana nubalaad ahaado baa islaamku yimid mafaahiimtii cadaaladoo dhan sida wax walba oo nolosha u saxay uu islaamku mafaahiimtii cadaaladda u saxay aayad qur-aana waxay leedahay laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaan liyaquuma annaasa bilqist liyaquuma laamka naxwuhu muxuu noo tilmaamayaa ليقوم وحرف العلة صوم محال النبي هذا وصل بالري وكتبته وصل بالجنة حرف من كتاب القرآن كقيمه سوري حرف القرآن ككاملة
qiimihii suuleeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idin dhihi maayo alif laan miim waa eray bal alifu xarfun ajarkiisu leeyahay waana laysu toban jibaaraya wallaamu xarfun walmiimu xarfun laamku qiimihiisu leeyahay laamkan waa laamulcilla miisaankiisu leeyahay meesha wuxuu u fadhiyaa inuu na tusiyo sababta nebiyada loo socdo oo rabbi subxaanahu wa tacaala kutubtuna u soo dhiibay wax kale inayan ahayn keliya ay tahay liyaquuma annaasa bilqist dadka si cadaalad loogu dhexo manaha manhajkii islaamka o dhan baa cadaalad aragti ahaana falsafadii cadaaladda aragtidii laga qabay islaamku wuxuu ku xiray towxiidkii magacyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala alcadli baa ka alcadl caadilla marka haddii caadil la dhaho sifuu noqonaya laakiin alcadl waa ka xeeldheertoo cadaaladii baa ilaahay uu yahay subxaana allah isagaa cadaaladii ah alcadl practical ahaana taa waa as a theory waa iimaankii laga rabay qofka mu'minka ah towxiidkii laga rabay ashhadu an laa ilaaha illa allah diintan kusoo galay uuna ku dhimanayo ku ducaysto in ilaahay ku dilo bay ku rakiban tahay practica markaad u gudubtidna nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati macnaha fahamkii cadaaladda ee ku ekaa maxkamadda ee ku ekaa sheekada ee ku ekaa aragtiyaalka kala duduwan ee gaaliska ah fahamkii cadaaladdu wuxuu noqday wax laga rabo naagtii oo laga rabo ninkii wax laga rabo shaqaalihii oo laga rabo maalqabeenkii wax laga rabo kii mas-uulka laga rabo kii mas-uulka loo ah wax laga rabo generaalka ee laga rabo askari macnaha mujtamacii oo dhan bay saaqaysa kullukum waa mujtamaci islaam qof ka baxaya ma jiro fahamkii waaqiciga ahaa iyo falgalkii cadaaladda islaamka saasuu u dhigay nabigeenana calayhi salaatu wasalaam mathaal kii ugu khayr badnaa buu ahaa ee muujiyey cadaalad noloshiisa ka muujiyey siiradana aad bay ugu badan tahay mawaaqifta sidaas laga garan kara faadima markuu yidhi yaa faadimata bintu maxamed laa ugni canki min allahi shay julio saysar gabadhiisii oo kaley matalaysay faadima marka saysarkii roman empire gabadhiisi sal min maali maa shid waxa jeebkayga ku jira waxaad rabtidiga weynayso ama intaa wixii ka baxsan ummadda islaamka waajibka laga rabana waa ku saaran yahay waxa ka xaaraanana xaaraan bay tahay sal min maali maa shid laa ugni canki min allahi shay saxaabadiisiina sidaa iyadaa bay dabaqeen taabiciintiina sidaa iyadaa bay dabaqeen cumar bin cabdilcasiis baanu soo qaadanaynaa markii uu amiirka noqday kelimadii u jeediyey iyadoo adduunku uu madow ku sugan yahay iyo diinta islaamku shaksiyaadka caynkaasa dhashay cumar weliba taabiciintii waa ma ahayn raggii asxaabtii kamid ahaa nebiga la kulma calayhi salaatu wasalaam markii amiirka laga dhigo khudbadiisii ugu horreeyey u jeediyey wuxuu yihi amaa bacd fa inahu laysa bacda nabiyikum nabiy nebigiina dabadi nebi jiri maayo walaa bacda kitaab aladii undila ilayhi kitaabkii lagu soo dejiyey dabadi kitaab jiri maayo alaa inamaa axala allahu xalaal ilaa yowmi alqiyaama وما حرم الله حرام إلى يوم القيامة ألا إني لست بقاصد ولكني منفذ ما إنه قصديه من وحفليان فلي وأسكري الأمرين وأميرك المؤمنين فإنك صواب ما إن مضى الإسلام وما أنت مسؤول عنها ألا إني منفذ منفذ ذات من السنين كان دين أدين يوم ألا إني لست بمبتدع ولكني منتبع
وحلف ماي هو ذي دلائما ماي وزير إلى غير إذن دوري ماي برايم مينستر حقا إذن دوري ماي سفيرو إذن مقعابي ماي ريبك كنش العقل إذن صوب جميل ماي أنا إني لست بمبتدع ولكني متبع منهج دكسن وعادلة وعدالة السماء ويقري والراعي ألا إن ليس لأحد أن يطاع في معصية الله قف حقه إن الوعد معصي إلهي مجد ألا إني لست بخيركم كيدكم خير بدنا ميت ولكني رجل منكم من إذن كم دوانا غير أن الله جعلني أثقالكم حملا إلهي بقى قدر من عليس قادة ومن كم كي علاب علاب لقادة ومن إذن كم يسيدو كي علاب إلهي بقى قدر رضي الله عنه إلهي من موضع ينتاشي أغلاق إسلامك يدينتي إسلامك باهد ديدي عدالة وحي قاسيسي علماء إسلامك ضد عدالة أي كجيريين إن أي لقشوا ذاتية الله إلهي ذاتيس إنه سفرية قال عن عصر الذهبي إسلامكم محكو قال يقول ليج أموينتي مركي وقت قضي الماضي عباسين تنائي بلودين لبضي بقول السنة هجرية مركي انفتاح بهيدي دينة الإسلام هو وحي كذب وانتهي حضاراتي يكوي كدب بهيدي عقلي الروح دي بيوده هولجريس روح هذا أفر إيمان عقلي هذا أفر واقع كوني مركز ويا مركز جولن هيك وفي إسلام شيئاً عقلي سفورة وفي إسلام شيئاً يدرسديس يرتاي وفي إسلام شيئاً يوم مال كحيران وفي إسلام شيئاً يوم محبوس هو الشيخ هبل أما هبل أما يعني بني آدم كوانو حرة هذه وصل حرة هاي مدليس بالمقرية مدليس عقيم قف مركو عقل يوسف فريح انفتاح ووحو كلا جران كلا وحا صحا هي وحا خلق حكيم بن حزامان انتو دماني وحو جل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وانو قابل يجري من المدينة أنا أقبع ناطر بالدقال في بدر أنا أقبع ناطر بالدقال في بدر ولي بالصاحب بيها يرانتو وصاحبها هي مركوين هذه وحدد بين نقطة خديجة الدوة وصوى ما القبينة ووحو صاحب لها النبي عليه الصلاة والسلام انت سبحان وقع السمعين ويري أبيال يا أبويا أنا غير كيما كتب بحين حردوه وين باي وحد غير كيما تشاريا هذه هوشة سألة قدومي الوضع العربي لله الوضع هذا هو بلان على سوى الإسلام وأي حكمة بانجري عقلي إلهي نسيه بأن الدبر كله الدبر عيب ما أقف بيقولون نقرأ كم النقطة السياشن كان هو نقرأها لكن عقل منفتحة إنه قرص ووحي سحل إلهه وحي خلد حكيم مركا وحي يريد وليش يسيب عليهم صحابي باتهاي حاد كشغينس نبي جيبات عليه الصلاة والسلام لا قرانتي وادل جهادي وادماركتي أعوذ ديسي وحي يريد وحن كشغيني سنوين كاسقوري وأنا أكسونا وحن قوتي صحتها أبيال يا أبويال تي حكيم باهدا Somali da weli inkastoo khayrku badan yahay sana hawshii weli waa nadabras weliba dadka ilaa leeg iyo waxa iga weyn culaab baan ku nahay jiilasha culaab culays baan waxayan qaadi karin ya
حتى هدينا قصدم مركا نقطة كل شيء كيسانو ما مغلى ثقافة الصعود ثقافة الصعود أنا الإنترنت كل شيء جدا ماذا نريد يهيدي ساشا كيسانا أهلا نقول واحد تري لحيته سنة شيطان لحيته أدور سنة مختلف ورياها غير ما تحيط مركوية إلهي مقعي مركا إذا مركا كتير الشيء كذي بمضى مركا لديه الله أصلي ويسوي دست مركا أصلي ويسوي دستوي ما يبوصاصه الماء مركا وأبرياء أبرياء المجيب علاب إلهي هون حرست إلهي هون حرست دين الإسلام كمركة عدالة أساس يبقى حل عصر الذهبي وإسلام ثقافة الدون كتير وينتو صوقاتي وذا ترجمتي كتبتي جريكا كوي بيرشيان كوي رومان كوي إمام مأمون وهارون الرشيد ويلكيسي كتبتي الدون كتير وفن هلاكين من كسر مترجمنا هاي ما ذي البغداد دار الحكمة وأساسي مركزها واحد الترجمة البحر ماذا ما أنت آدمك وكفار يوم هل كاسي كسر لولا من كاسوسا سيدا السمايين كتبتها ولا بابينه مركزها مؤسسا ترجمين كريه حتى أوفر يستيق علماء إسلام كعلوم يا شيء في ربه هل كي بيفرستين دوضي بلامين ثقافات كي علمي الدون خيلو رم بيفرتقلي هذي فلسفة هاي هذي جغرافيا هاي هذي علم الفلك هاي هذي كيمستري هاي فيزيكس علم الأدب علم الكلام علم النقد علم أي كتها غير مجري حيالها مركا أبورمي وحاكم إذا علم الكلام علم الكلام في بابوح قاسية إن عدالة لغاهم رقا كوح الإرادي مركا عدالة رقا كوح الإرادي وحاكم إذا وكسو بحي فرقة المعتزلة الليلة محي كفو هذا اليوم إلهي عدل ما سبحانه وتعالى أعدل العادلين قفك كبيرة دنبك وين هدوع في يوم لعادل ما هرب قفك كبيرة مركا لا عفي ما يعني قفك توصنا قرآن كان مكفى منا وحنا نكفى منا عدالة إلهي قال إيضا halkaas ku fogaadeen xasan al-Basri ninkii ka magaciisa wuxuu ahaa waasil ibn Ataa xasan al-Basri ardaydiisii buu ka mid ahaa nin iftahana bilaana waa codka nin cabqari iyo caqli badanna waa nin aqoon ilaah siiyeyna waa sheekhi buu marka kaga dhaqaaqay arrintii معتزلة أساسا الشيخ حسن البصري رحمه الله وحده اعتزلنا واصل والنقد وسطين المعتزلة هل كاسب قرأ كلا يرى أبو الميت وبنعي كليست وعلماء الإسلام وحي إلى هذين كوانا ينقدنا ونستقف إن كبيرة ونبع ذلك حتى هدينا ندب كل علم نوع عبادة إسلامنا نرشنا عبادة كلهم قالي عبادة كلهم وإلهي إن عذابك رواية سلام عليه سلام عليه مرك هنقولنا عذاب حتى عبادتنا وحبا ننفع نفس قال أسنا وحا وضيوها الشيخ وإنا أبو حسن الأشعري ومنهج كان أشعري يده ولبس تربيب النقضي أهل السنة عقيدة أهل السنة وعلماء أهل السنة حب جديد يتعين بيهقي النووي غزالي السيوطي عساكري ابن حجر قرطبي علماء السودان
fikradaasi ku tageen lowla iyagu jireenna manhajkan sunniga ah khalal badan baa ku imaanay macnaha mowqifka fog ay istaageen bal waxay ku difaaceen manhajkii sunniga islaamku marka isdihaar buu sameeyey fikriya isdihaar wuxuu sameeyey caqiidiya cadaaladii buu wuxuu ka dhigay wax caqiidadii iyo tawxiidkiina ku xiran oo qofka ama maxkamad ha joogo ama shaqaale beer falaya ha ahaado ama xuduuddii dowladda ha ilaaliyo oo askari waardiya ha ahaado in xilkaasuu hayo uu ammaano ku yahay lagana rabo sida u wanaagsan inuu guto dabadeed xilligaas islaamku isdihaarka ku jiray xadaaradii roman empire-ku waa sii burbureysay waxa ay galeen qarnigii 500 ilaa iyo 1100 bacda almilaad reer yurub waxay galeen dark age waktigii mugdiga casrigii mugdiga macnaha aqoon oo dhan bay waxay ka noqdeen arab waxay noqdeen dad mutadayiniina si u dhan yihiin ha noqdaana diin khuraafigii baa waxay gaarsiisay markaa aragtidan forgiveness iyo indulgence aragtidan kaniisadda ay wax cafiyeyso heer waxay gaareen qofka dembigii uu galo inuu kaniisadda yimaado dembi kasta aada geshid waa laga cafinaya keliya waa qiimaysan yahay sicir waxaad iska bixinaysaa dembiga intuu leekaa dhaqaalenaya waxaa laga imaanayaa north Europe, east Europe, west Europe kulli waxaa la aadayaa kaniisaddii talyaaniga ku jira cafisman hanti baa la wadaa markii dambe waxay gaadhay qofku inuu soo sheego dembigu gelayo hebel baan rabaa inaan dilo marka icafi intaa iska bixi baa leeyahay intaadan gelin dembigii baad sii sheegaysa taariikhdaas dhibic madow bay ku noqotay reer yurub taariikhdoodii xilligii athawra faransiya baa u horreysay inay la diriraan buyuuddaas hargahaas waaweyn ee dabarka ah khuraafiga inay ka baxaan kacdoonka isaga aragtiyaal baa ka horreeyey kana dambeeyey xilligiisiina jiray oo ka hadlaayay cadaaladda dulmigaa faraha badan ee dhashay waxaa ka abuurmay kacdoomadaas ay towladii faransiiska ka mid ahay waxaa isla bedelay siyaasaddii tiila yurub siyaasaddii boqortooyada faasidka ah ee haramka ku dhisan ee ninka boqorkaa loo haystay in xag ilaah laga soo magacaabay uu muqadas yahay wax la hadli karaana uusan jirin waxaa u bedelay nidaam jamhuuriya oo dadku ay dhistaan dadku inay iyagu dowladdoodii dhistaan haddayan dowladdu dadka ka iman dowlad ma guriga aabbaha iyo hooyadaa dhista ma dhici kartaa guri nin kale leeyahay ama aabbe kale leeyahay inaad ku naalooto ma dhici kartaa suuragal ma dowladdu wax dadka ka yimaada iyadana u taagan iyadana u adeegta halkaasuu ku fadhiyaa horumarka iyo baraaraha maanta aan martida ugu nahay dhaqaalahoodii systemkii dhaqaalaha ahaa wuxuu noqday system munfatixa oo awal wuxuu ahaa dadku beeralaydu iska ahaa baadariyadaas bay u shaqeeyeen baadarigana wax kastuu dadka ka qaada boqortooyadu siiya waxna isagaa lahaa nidaamkii mujtamaciga ahaana waxaa bedelay in imtiyaazaadkii ay haysteen nimankii nobeliska ahaa laga wareejiyo ragga u kacay xilligaas waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo David Hume
nin philosopher runtii aragtiyaal maogtahay mujtamacu markuu isbedelayo waxaa u kaca niman mission leh sugaanyahanaha filosofiina wadaadaha mujtamaca caqiidada ay aaminsan yihiin u saxa haddii alla kuuro yahay qoraayaala taariikhyahanaha dadkaasiba shaaha sida sokorta loogu daro halba haddaad ku dara weli ma macaan soo qaado kale uma baro suu midan u helo mujtamacu saasoo kaleu midan u baro isugu macaanaado waa inuu wax badan gaaro wax badan leegadii markay halgamaysay sugaanyahanaa kacay niman xamar ku dhashay oo reer xamarkii cadcaddaa xaaji maxamed xuseen waa taqaan boosaasuu ku tiri berberuu ku tiri cadan buu tiri mana reer xamar muxuu wadaa sokortaa macbu faafina ya kii boosaaso ka yimid baa afgooya tiri oo lagu soo dhaweynayo la seexinayo ya baabuur ma jirin magaalo ka baxa magaalo kale aada wallaahi raggii qaar baano ilaa xarunta leegadu taga wuxuu dhaawaraaq ay dhibaysaan ma haystaan beledweynaan u socda baydhabo ka soo baxay haa waraaqaan sii qaad jaa telecommunicationkii waa xidhay kii u socday gaalkacyaa u imaanaya baydhabo ka baxay gaalkacyaa u socda labadaa qof sii qaad kii xamar u socdaa u imaanaya islaamtaan sii qaad baabuur kastoo baxaya tuulo aduu ka baxaya ninbaa adaacadda wuxuu ka sheekeeyey aada cabdilla cismaan wuxuu yidhi nin darawal aha oo laga ahaa baa jidkaan u dhexeeya buusamareeb iyo gaalkacyo wuxuu yidhi waladeer wasiiqa waa baadiya soo fudo hadhow markuu wadi cabdaan buu yidhi yaata ninkii la qaadaya kii darawalkii gaarigii buu joojiyey iga deg deg baryu galay iga deg markuu dejiyey uu wax yar socda uu istaag kaalina waaba yimid soo fugo soomaalinimaa kugu qaaday nin reerkaagaa ma sugaysaa buu ma rabta inaad waxba ma sheegta inta nin reerkaaga oo halkaas soo maraayo ma sugaysa maya adeero darawaliintii iyo askartii iyo taarwalayaashii saddexdaas oo u wada shaqaynayay sistamkii gumaysiga ahaayee jiray baa leega wada noqdo fikraddii qaatay lowlaa ayan jiri lahayn odagaa ii sheekaynaya wuxuu jiraa 97 sano una caafimaad qaada lowlaa ayan jiri lahayn saddexdaas buu yiri wallan la guulaysteen marka waa kan adaacadda sheekadiisa ma ka garanaysa iga deg buu yiri nin reerkaaga waxaa laga yaabaa bil inuu sugo nin reerkiisa laakiin nin soomaaliya saacad kastuu soo maraya naficii bay dadka dadamiyeen sokortii baa u badatay hal mar bay marka iska qaadeen wixii xilka lahaa yimista yurubna sidaasoo kale marka dad baa u kacay fikradahaas infitaaxa u baahiya ninkaana ka mid ahaa david hog 1776 nadariyaadkii dogmaatiga ahaa buu la diray hadalladuu yidhi waxaa ka mid ahaa anshaxa qiimihiisu waxaa jaangooyo ku sameeya bimiqdaari ishaamiha fi nafc anshaxa qiimihiisu hadba inta mujtamaca uu ka faa'iido uu qiimihiisu leeyahay waxaa jiray nin la dhaho isaguna Charles Montesquieu Frances buu ahaa 1689 ilaa 1750 buu noolaa wuxuu isna yidhi laa yumkin damaanu alcadaala ma dhici karta cadaaladda inuu damaano qaado alcadaala alfardiya ilaa bifasl in la kala gooyo maahe السلطات الثلاثة saddexda saldanadood
maxay tahay saldanada tashriiciga ninka wax sharciyeynaya, saldanada tanfiidiga ninka awoodda loo fulinta leh sida Cumar bin Cabdilcasiis oo kale, iyo saldanada qadaaya. saddex awood oo si buuxda isu garab leh. waagii cabta la joogay baan telefishinka waxaan ka daawanaya doorashada, kulli waxaa la isku leynaya wasiirka iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo, laakiin ninkii loo doortay asudda alqadaa'iya waa ninka ugu culus runtii haddaanu dowlad ka hadlo halkaasu iska fadhiya. ma waad maqashay magaciisa ma taqaani ya ma taqaani, laakiin wasiiradii oo dhan waa la yaqaan sababtoo ah isagaa wixii oo dhan fuuqsanaya. ninkan wasiirka kan maaliyadda loo dhiibay kaas hortadii gurigu dhigtay, marka waa lagu tartamay. laakiin sulda qadaa'iya hadday jidho mushaharkiisa ka badan waluusan la dhamiyeen, shilin ziyaadaha waluusan helin hadday sulda qadaa'iya. ninkaa xilligaas buu tilmaamay marka, walow diinta iyada islaamka Cumar bin Cabdilcasiis aanu maqlaynay inuu yiri ma ihi nin qaaside, waxaan ahay nin munafida, nin wax fuliya. sulda qadaa'iyadii waa in ka madax bannaantay. ilaa haddana waa sidaas, ma aha carti keliya. tii bigaatii lagu dhisay, tan hadda noo joogta, tan iman doonta, ilaa shacabku uu wax garto, ilaa shacabku uu sokortaas koobka aan ku walaaqayn oo kale uu u macaanaado. waxa weeye ninka tanfiidiga baa wax walba la wareegaya, wax walba la wareegaya. Kant nin la dhaho Immanuel Kant 1724 ilaa 1804 buu noolaa, filosof jarmala buu ahaa. isaguna wuxuu ka tegay hadal ah cadaaladdu saddex wax bay ku dhisan tahay oo aan gorgortan geli karin. xurun min wilaadatihi, qofku waa xor tan iyo maantuu dhashay, waa aasaas adag oo cadaalada. karaamatun tafuuqu fawqa kulla saci, sharaf wax walba ka sarreeya aan qiimo la siin karin. sharafka qiimo ma la iibin karo, lama iibin karo. iyo waajibun yacmalu bimuqtadaa alakhlaaq, waajib qofka saaran, qofka isaga in waajib saaran, waajibkaasna wuxuu fulinaya isagoo ay anshax weydiso. muqtadaahu alakhlaaq, waajib anshax weydiso. saddexdaa nin baanu kaga baxaynaa afkaartii wanaagsaneed ay dadkan ku xoroobeen. laakiin at same time waktigaas waxaa dhinac socday afkaar shariica oo sharaf oo dabraya afkaarta wanaagsan inay horumar gaadho. waxaa ka mid ah Adam Smith, aabihii dhaqaalaha lahaa. ninkaasi laba kutubo waaweyn buu qoray oo marjic u ah dhaqaalahan liberaalka ee casriga cusuba. kitaabna waxaa la dhahaa Wealth of Nations, bariisamaadka ummadda. wuxuu kaga hadlayay qofku ilaa mujtamac dhulka uu ku nool yahay khayraadka ku jira uu fakto inuusan saboolnimo ka baxay. kitaab weyn weeye. fahamkaas wax weyn baa isaga bedelay fahamkii mafhuumkii dhaqaalaha ee xilligaas la haystay, walow diinta iyadu ay horay uga hadashay. waladii jacala lakum alarda daluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min rizqihi. Adam Smith wuxuu kaloo qoray buug la dhaho The Theory of Moral Sentiments, nadariya mashaacir akhlaaqiya. wuxuu kaga hadlay dhaqaalaha inuusan noqon mid xadidan. dhaqaale liberaala oo furan waa inuu ahaa, waa inayan dowladdu xadidin, faraha la soo gelin wax soo saarka iyo dhaqaalaha. kow, xataa anshaxa waa inuusan xadidin. anshax akhlaaqda waa inayan dhaqaalaha xadidin. diinta islaamka dhaqaale furan oo munfatixa iyo dowladdu lug ku lahayn bay jidaysay.
لكن أنشح بعيدنا يضغط لأنه أنشح إنه عليوي سكن الصدقة وحنا ولا يسترب وحنا ولا قاعد من حدود هذا الجيل ربا ولا يارب لا رشوة ولا يارب رشوة وحيالها محرمات ولا waxaa kaloo ka mid ahaa nadariyaadkii shaydaaniga ahaa ee ka hanaqaaday yurub xilliyadaas ninkii la dhihi jiray Charles Darwin mashruuciisii safarkii 5 sano ahaa markab biiga la dhaho 1831 ilaa 1836 Latin America xeebteeda galbeed Australia meelo ka soo maray Africa meelo ka maray 5 sano wuxuu baarayay xasharaadka iyo dhirta iyo farqiga u dhaxeeya markaas wuxuu soo saaray BBC The Origin of the Spice anwaacda makhluuqaadka jira meeshay ka yimaadeen marka luma laha atom baa laga yimid single cell baa la noqday proteinad isu tagay نفي الروح بيشان وهكذا إلى ضياء ومنيد ومصابيوس ومراكتوس هيومن ساسا وحن كلنا وضعي كسودنا نظريات خاصة نظريات بلاد طول الدونين وقندونا إن بدنوا كاملة دور بيبقون مقطيسي ضطن دقالوه كله دقاليه الدونك هاربر سبنس بيسمجري survive for the fittest كون يسديد بقولي لا تنكي كل شيء كون يسال بقولي يسدح لي بقولي survive for the fittest الأبقى الأصلح هو الأبقى إنك تبرت يا يعني وحبها جايين كريم هذا أيوة ورش وقص العيا ما دام وقص العيا إنه بنتابع السنة قانون باجرة جينيتيكالية قفك جينيتيكالي سيكون حيرانتهاي قفك وارعية ترماية صعاية تطور كامرش قلاية جين كيسي كل حد مثل باقاية مسكين ضعيف كاسدا سوالدو يتغير على بيقوة إلى بابان هوسيا كاسنا هو هاربر سبنس واحد بدل اليمين نلا إلى فريدريك نيشت وجرمانا كل سدس بقول يافر التركي كل سنة بقول كيبوت سنة هو يجري واحد عدالة هذا الدنيا ذا مجده القوة هي وحدها القوة وحدها هي التي تطرأ العدالة حوج يدا عدالة جديدة حوج منك حوج سدع عدالة جديدة فإرادة القوة تفترض هيمنة أخلاق القوة ما ملك حوجاس بروح الفرد يلي هيمنة أنشح أبودا لكن المساواة والحرية فهي من شيء من ضعفاء السنات هي حرية هي عدالة وهو ضعفاء كل شيء كيان وحاحيلي يسوون يمد كارل ماركس يسوون النظريات يصير تطور المجتمع وكيني قفك قابل يسوسو بدلا هديه جارس دارون شيء كان مجتمع قابل يسوسو بدلون شيء مجتمع دايات أساسا مولايين براه يسرد برندلين مستقبل بوديدين مجتمع يقول رياضات كالنوضي ساسو مولا سيولو سعودي لا مانتا مجتمع السومالي بعد مريا وهو يمكن دينتي وجودك إلهي سبحانه وتعالى نغاره آذ دور رمي وحجر تراكم البضائع تأتي من العمل بضيعتها نسخ الفورة سيسوقتها شغي كتب يمتلك سمة خاصة تأتي من العمل الإنساني والعمل بدوره بضاعة يمتلك سمة خاصة فهو ينتج قيمة أعلى من شراء وحنا عندنا وحنا قيميني كوكا إمي سجوغا هالباب كوكا ما لسميه ما دام لسميه شقادي قشي قف كان شقيه شقادي سي وحي كقيمة بضنتها كوكا مركب وعلنا قيمة
shaqaaluhu rabay inuu ku diro kacdoon shaqaalaha fikradaas waday isaguna qarniga bilowgiisii uu kacay fikradaas nadariyadii shuuciyada ahayd ee Soomaaliya noogu timid ee wareerisay ayaamo oo culimadeena aan ku dilay oo muddo Soomaalidu ay ku doodaysay Ilaah waa dilay iyo ma jiro subxaanahu xabal waa dhigtay niman macallimiin noo akhrinayo nadariyadaas adduunka qarnigii tagay aad bay ugu wareerisay khayrkaas iyo sharkaas ama hadallada quruxda badan ee nimankaa ka tageen iyo hadallada dhibka badan ee nimankaa ka tageen qarnigii tagay fawdadii adduunka ka dhacday fikradahaas oo ishardinayay baa u sababa hadday tahay dagaalkii koowaad ee adduunka hadday tahay dagaalkii labaad ee adduunka hadday tahay dagaalkii qaboobaa oo intuba Soomaalida ay saameyn xoog leh lagu yeelatay intuba dagaalkii koowaad 14 ilaa 19 busado Soomaali 14 sano oo qarniga ka horreeyay dagaalka koowaad intuusan bilaaban Soomaaliya waa ololeys dagaalka ka dib kii koowaad waa noogu bilowday korkeenu ku dhamaaday markuu dhamaadayna ilaa 30 dagaalaas dagaalkii labaad qolaba waxay sheegtay China waxay dhahaan wuxuu noo bilowday dagaalkii labaad wuxuu bilowday 1935 waayo iyagu bilowday dowladaha Yurub waxay dhahaan dagaalkii labaad wuxuu bilowday 1939 waayo intuu ka bilowday dagaalkii labaad sidiisaba wuxuu ahaa dagaallo waaweyn oo adduunka ka dhacay markii la isu geeyo baa dagaalkii labaad haddaad gogolaha eegtid uu ku sheegaya dagaalada iyaga uu ku tirinay dagaalkii labaad marka wuxuu yahay dagaaladaasoo la isku daray dagaalkii u horreeyey baa bilaabay waan isku diiday dagaalkaa u horreeyey Soomaaliya ka dhacay xabadii u horreysayna walwal bay ka dhacday nin Soomaaliya xabadii u horreysay dagaalka geed baa waxaa fuulay Cabdiqaasim Salaadabiis waa askariya geedka hoostiisana waxaa joogay aadan shireen nin la dhaho oo isna askariya dhalinyar ay ahaayeen geel jirtii ay tagaan ugu qorteen dubac xuduuddii baa la isku haystay askariya maxaa hilib cunay kaasaa ugu soo waa sunna هذا المركب قريب ويست قاسم كربو قاسم بعد واقع يورنيك لفظ الوسط يا لفظ الوسط هكذا حبت كسي سؤال الوضع عاطفية وحيان بين واحد كوب البريني تقارن كيف البريني انتيا حبت داس دقال كي لغاد الدنيا حبت داس يكمل يمنت وانا غير محسنايا يمنت حمل تجنيد الصومالية وإلى السعودية حبت والوالد كل شر لا تنفي لنا أقول لك تواصل يسرعون حبت والوالد حبت داسا بالله دلال في قبوبانا ونقوب بالوضي دولته دلال في لغات أكادي 4 باورز مركي سوي مادين والضمعين دولدي إنay ka tashadaan murankoodii ugu horreeyay waxyaabahay ku murmeen oo ay ku heshin waayeen marna Soomaaliya waana ay ku dhamaatay korkeena ku dhamaatay dagaalkii labaad markuu dhamaadana dagaal inoo gaar ah noo bilowday annaga ilaa hadda ma socono fawdadaas marka adduunka qarnigii tagay ka dhacday oo dictatorada dhalisay aadamigii lagu gumaaday 100 milyan ka badan baa intay baa lagu qiyaasaa dagaalkii labaad tiro kala duwan baa la sheegaa 70 milyan ilaa 100 milyan meelaha qaar baa ka badiya 100 milyan ma dadkuna waagaa inta waa ka yar waxayna u badnaayeen maanta magaalooyin dhan baa dhulka laga sameeyay waxaa la isku adeegsaday adduunka horena aan loo isticmaalin
kadibna la isticmaalay. islaamku marka nadariyanna cadaaladii wuxuu ka dhigay wax ku xiran tawxiid oo qofka iimaankiisa intuu gaarsiisan yahay iyo anshaxa uu cadaaladdan ku ilaalinayana gaarsiisan yahay. camalina qof kasta oo qaangaara xil baa ka saaran cadaalad. saasuu islaamku mafhuumkii cadaaladda u bedelay. hadda habka markaanu eegno dowladaha reer galbeedka ee maanta xadaaradii adduunka hogaaminaya, cadaalad waxay u yaqaaneen xuquuqul aadami. waxa kala celinaya ay ku dhaqanyeen ku nool yihiin cadaalad maaha, waa xuquuqul insaan. sharci bay jirsadeen, saan maxaan ka yeelaa, saan maxaan ka yeelaa, saan maxaan ka yeelaa. xuquuqul insaan iyo cadaaladda waa kala xeel dheeriya, aad bay u kala xeel dheeriya. cadaaladda xorriyaddii baa soo gelaysa, xuquuqul insaankii baa soo gelaya, waxaa soo gelaya tadawurkii furaa oo dadku u sinaa. maratoonka marka la ordayo dadku waa siman yihiin, dee nin iyo garaadkiis. Soomaali haddaan nahay kaljarka iyagoo cadaalad uu ku dhisnaan jiray. dadkeennii hore aqoonta diinta waa ku yaray, bal maba lahayn aqoon diineed. niman xeer oo cilmiga ay yaqaaniin ay axkaamu dooneen, axkaamley baa la dhihi jiray, bay diin oo dhan marti uga ahaayeen. waxay marti uga ahaayeen wax kooban, guur. marka la guursanayo sheekhi noogu yeera, axkaamtii guurku ka daday. diyo marka diyada la qaybsanayo iyo dhaxal, intaasaa u weyneed waxay diinta marti uga ahaayeen. inta kale fidro nadiifa oo ay wataan, kulla mawluudin yuladu cala alfidra. fidro nadiifa oo ay wateen, oo ay dulmiga nabcaayeen, oo ay gacanta isqabanayeen, aan la isku tarax tegi jirin. hadduu shir ka dhex dhaco hambaa la reebi jiray. hambo ya war waa la doogiye, yaa la dacaroobin. soomaaliyahooda ka mid maaha. ya waxaan waa laga gudbaya xaaladdan taale, ya hambaha la rabo. dad sidaasay ahaayeen. cadaalad mafhuum dhaba oo ku dhisan fidradii ilaahay uu ku umay. sheekooyinka ka mid ah eena tusinaysa cadaalad jaceylkooda iyo say khaladka u qaban jireen. ninka mujtamaca darajada u sarraysa hadduu yahay, ugaas iyo suldaan iyo weliba aad bay u qadarin jireen, waa ka bixi jireen nimanka isimada ah oo ugaasyada ah. waayo iyagaa niman asturan ahaan jira, niman cibaado badan, wardi badan, asturan bay ahaayeen. marka way xishmayn jireen. markay wax maraan oo ay heshiiyaan, xalay dhalayn aan ka noqon, odaygii baa guddoominayo, waa lagu kala tegaya. reer 100 laga dilay iyo reer 50 laga dilay, waxaa arkaysaa maalinta dambe ceel wadacabaayo anjur isu dhigay. waayo odaygan bay cadaalad ku ogaayeen, kama yadbaxnay. haddii khalad uu galo marka odaygii laga hegaysanayo oo ay awoodda diiniga uga baqayeen, hadduu khalad galo ma ka aamusi jiren, maya waa qaban jiren. sheeko waxaa jirta ka dhacday galbeedka Soomaaliya. nin ugaasa oo xoogaa musuqmaasuq fiican buu sameeyey, reerkiina waa ku wada ogaada. waa la tashaday ugaaska in laga qaado xilka. ugaas xaashi waa maqashan baan u malaynaya, waa sheeko caana. 8 jifi buu ugaasu ahaa walaalaa. 8 jifi ugaaskii waxaa la yidhi see yeelaa, waa loo tashaday. waxaa la yidhi hala qalamiyo. markuu yimaado jifi walba ninka ugu aftahansan ha soo baxo oo sugaan ha kula hadlo ugaaska. 8 nin ugaaskii oo geedka hoos fadhiyaa, qabaa'ilkii odayaasha yimaadeen. nin kasta oo aftahan ahaa gabay buu meeshii ka tiriyey. 8 jifi raggeeda aftahanada ah. nin ka mid ah baan gabaygiisii idiin soo minguuriyey, qayb ka mid ah baan dhegaysanaynaa.
wuxuu yidhi magowsiin haddaan layga siin maax la dhuranayo oon meesha taagnahay anoon murugna leefayn oo mayrax aan igu xirnayn maylimo u haysto oo weliba mood iyo salaan ugu malaynaado saddex magac alle xaajadaa layma maraysa saddex magac alle waa meesha waa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waa beydka sayid maxamed oo Soomaali ninka ugu aftahansanaa uu yidhi waxaan jeclaan lahaa ereygaas ninka yidhi inaan noqdo ninka waa iga helay ereyga waa iga hor saddex magac alle xaajadaa layma maraysa mahwiga ceel haddii loo kaco maalku ku arooro wowmiila qayb niman hadday magac wadaagaan xoolihii marka ceelkaada waa in la isu fuutiya geela marba maaragtay nin la sii daayo wowmiilan qayb niman hadday magac wadaagaan masow aabbahay iyo halaan magan ka soo gaaray rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaynu nahay oo toolnimo meerto noo tahay reer ka madax taagan ma jiro uga waaday reer kaalada mase inaynu nahay oo toolnimo meerto noo tahay masallaha nimaan ii dhigayn midig ma saarayo kii aniga iga maarmi karaa uma muraad yeesho inuu aabbihiis madar yuhuu muuro ku lahay muska inaa afay galay allada kama miciinoodo sidii koran xiniyaha laga mudo uma mudugnaado neef xiniyaha laga garaaco halkaa iska tahay mahima gabayo qurux badan bay tiriyeen 8 nin ugaaskii ninkii dhinac fadhiyey baa ku yidhi ugaas hadda reerkii ku nacbi waxaan isku dhijinayo hadda ninkii lala hadlo reerkii oo dhan kicinayo xabado iyo maaragtay ummadda ilaahay ku cadaabayo kursi aan wuxuu yahay ma jiro ugaaskiina muxuu yidhi annagu dhiibay maashiibu cimaamadii ku maashiibu cimaamadii dhaqanka Soomaalidu ay lahayd ee rasmiga kaasi waana mid ka soo jeeda fikrada wanaagsan iyo diinta islaamka intaasaan uga baxaya Allah subhanahu wa ta'ala